السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإذن سلامي دمانتين سيدا أد ودنتهين mataqaanaa waxaa si weyn oo badan oo yacni hal mar iyo laba mar aan la dhihi karin iigu soo laalaabatay miiskan fadhiga ii yaalo meesha aan kasoo iibiyey iyo mataqaanaa iyo sida uu ahaa waayo dad badan dukaanka aan kasoo iibiyey marka aan u diro weliba linkigiis aan u diray waxay leeyihiin beenley ayaa tahay mataqaanaa ma ahan miiskan waad qarsanaysaa meesha kasoo iibisay iyo waxyaabo lamid ah soo marka wax aan ka qarsanayo maba lahanba wax YouTube yaalo actually laakiin waxaan rabaa dadka inaan si fiican ugu faahfaahiyo video ayaa jiray oon dhahayo cafe table update miyo ama living room update something like that oo miiskan kaliya aan uga hadlayay oo mar hore aan soo geliyay in miiska siduu ahaa aan kasoo bedesho oo sidan aan kasoo dhigtay soo marka hadda waxaan idin tusin doonaa miiskan originally sida uu ahaay iyo sida aan hadda kasoo dhigay si mataqaanaa asxaab badan oo i fahmi waayeen oo u maleeyay inaan ani wax qarsanayo ay u fahmaan insha Allah ay u arkaan sida uu ahaa iyo aniga sidaan inaan u soo sameystay insha Allah video si fiican u sii daawada si aad u aragtaan miiskan originaligiisi to sida hadda uu yahay asxaabay waa u jeedin soo ma ahan miiska dhalada ah ee fadhiga hadda ii dhex yaalo waa kana markii dukaanka uu yaalo aad soo iibsanaysid sawirkiisana waa kaasa dukaanka uu yaalo aan ka iibsaday iyo lacagta la iibinayo actually lacagtiisa markaan gadanayo wuxuu ahaa 2,000 oo karoon laakiin hadda waxaa lagu soo sameeyay qiimo dhimis oo qofku u baahan kale uu ka faa'iideysan kara qiimo dhimis ayaa lagu soo sameeyay 300 ama 400 karoon ayaa laga soo dhimay marka waad arkaysiin soo ma ahan meeshas waa kan idin soo saaray sawirka dukaanka marka uu yaalo miiskan sidan ayuu egyahay waa kan marka dukaanka uu yaalo oo dadka linkiga aan idin soo diray aad u maleysiin in uu mataqaanaa link qalad yahay ama miis qalad oo kale ama been aan idin sheegayo waa kana sida aad arkaysiin miiskan waa kan inta qof aan u diray kulay way arki doonaan linkigoodi way haystaan insha Allah marka as you can see hadeertaan waa kan miiska originaligiis okay hadda waxaan sameeynaa markii la soo arkaa alaabta sharaxaad ayaan ka qaadayaa gees ayaan ka dhigan doonaa insha Allah kadib ayaan idin tusinayaa aniga sidoo hadda uu yahay sidaan uga soo dhigay la socda sida aad hadda arkaysiin waxaan ka bixinayaa waxaan ka qaadayaa mataqaanaa bahasha weyn oo korka uga dabal miiska wuxuu qabaa meel bahal yar dhibc yar oo la arkaynin oo aad isugu dhajinayo oo xataa miiska hada dhinac kale u dhigtid uusan ka foqeynin marka meeshas bahal yacni sidii inaan ku xoog u kala fujiyo waa hada soo ma ahan maadaama bahal yar oo adag u wato marka bahalaas ayaan ka fujinayaa kadibna waa arkaysiin insha Allah marka ka wada fujiyo oo sida kale aan u soo sameynayo soo marka asxaabi hadda sida u jeedin midii hoose ayaan bixiyay waad idila socoteen videoga waxaan soo gelinayaa waxaan soo saartay midii weyneed waana simaaya sida u jeedin bahasha weyn oo yacni miiska marka originaliga la socotay ayaan hadda soo dul saartay kadibna waxaan soo saaran doonaa bahal yar yar oo ii kala celinayo labada muraayad waa labada muraayad bahalka miiskan hadda ii saaran haddii aan muraayadu kaligeed aan saaro xogaa qarif jaqaf ayaa ka yeeraysa marka la sikinayo balaas labada miis way isxogan karaan muraayadan aad dhaqsi ayay ka dhici kartaa soo marka labada sida oo saas u dhicin bahal ayaan soo saaranaya waatan waan u jeedin muraayada ana selfkayga u soo gatay miiskayga ayaan cabiray internetka ayaan galay muraayad miiskayga ku cabir ah oo internetka ku jirta ayaan raadsaday kadibna waan soo qaatay waad jeedin soo maahan asxaabay hadda waa arkaysiin ayaan u maleynayaa muraayada ayaan soo saartay waayo muraayadan aniga waxa idin sheegay waxaan galay internet miiska horta cabirkiisa ayaan haystay
markaas kadib waxaan galay internetka oo google-ka ayaan galay waxaan ku qortay muraayad oo round oo yani intaas la eg kadibna wuu isoo saaray muraayado badan ayuu isoo saaray and then midaan ayaan kala baxay oo ilo qurux badnaatay yani geesaha ayaa waxyar waxay ka tahay si yaro oo sibix aad ayaan ilo qurux badnaatay soo marka midaan ayaan ka qaatay soo dadka u maleynaya inaan aniga aan wax u diiday ama wax ka qarinayo waa sheegay mar walba waa sheegay laakiin waxa isla dadka inay arkaan ayay u baahan yihiin instead aad sheegi lahayd kaliya waayo marka aan sheego waxba lagama fahmayo wixii waa la isoo weydiinayaa marka qofka aan linkiga u dirane oo isdhaho waakan qofkan wuu kula soo xiriiray linkiga ku caawi waxa uu maanay miiskaas cad dadkina waxay arkeen miis muraayad oon cadeyn marka sidaas ayaa hadda videoga inaa soo suubay ugu dhalisay waayo ilaa ay waxa la iga soo weydiiyay TikTok miiskan waxaan ka dhahay meeshas ayaan ka iibsaday dadkii jaadka ay soo galayaan waxay leeyihiin abaayo meeshas ma yaalo midkan noocan ayaa kan muraayada leh ma yaalo maxaad been noogu sheegay soo been inaa sheego ma ku qasbani been inaa qof u sheego uma baahni waan arkaysiin miiska sida quruxda badan uu ku soo baxay laakiin waa si ani ka soo dhigtay si dukaanka ku taala ma ahan أصحاب شرفت لي مركب واد وجدين ميسك قروح ذاس له oo sidaas u quruxda badan waa miiska aad dibka aragteen ka soo mareysid oo aniga aan soo hagaajistay soo markii dadka aan u sheegan dadku waxay arkeen miiskan qurxoon oo wada muraayad oo aan sameystay miiska actually wada muraayad inuu ekaad waxay ugu caawisay lugihiisa ayaa wuxuu yahay silver on muraayad u eg silver oo actually just like muraayad waa lugihiisa saas ayay ugu caawisay in uu muraayad igu wada ekaado asaga dhan oo dadka ay dhahaan miiskan muraayad waa haysatid miiskan u direysidna miis nooc kale waaye marka I hope hadda inaad fahanteen oo mataqaana aad aragteen process-ku uu soo maray miiska soo maahan process dheer ayaa laga maray miiskan waana u jeedin marka waxa idin rajeynayaa videogan inuu idinka caawiyo su'aalihiina ahaa miiska xagee ka soo gaday oo marka idin soo dirina aad beent u maleynayeen insha Allah waa kaasa miiska sidaas ayaa u soo habeystay adinkana u habeysan kartiin dukaanka uu yaalo qofka Sweden degan waxa la dhahaa Mio Bunktise way fahantay maahan oo Mio dhibicsi ayaa la dhahaa alaabaha guryaha ayuu gadaa soo dukaankaas ayaad ka heli kartiin mataqaana meesha kaleeto meelo kaleeto waad ka raadsan kartiin miisyaal kale oo round sidaasna u soo habeysan kartiin soo marka muhiimada videogan hadda waxay ahayd in aan idin tusiyo process-ka oo soo maray si aad iga qanacdaan ilaa waa iga qanci weyseen waxa taagan tihiin waxa qarsanaysaa baayo ana u baahnay inaan wax idin ka qarsado oo inaan wax idin faa'iideeyo meesha joogo ayaad u maleysay inaan wax qarinayo laakiin hadda inay fahanteen ayaan idin rajeynayaa فيديو dambe oo qurux badan aan ku kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa khayr badan iyo caafimaad insha Allah waan idin salaamayaa asxaabta miskin waa aragteen sida uu yani uu ahaa before iyo sida uu ku soo baxay markii aan aniga habeystay soo wax walba habeysasho leh waa insha Allah adinkana habeystina idin rajeynaa